maayirka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Solteeko ayaa maanta booqday xerada barakacayaasha Istanbul ee degmada Macalin Haruun oo dhawaan qayb kamid ah guryaha xerada barakacayaashaasi ay gubteen. Maayir Solteeko ayaa sidoo kale waxa uu digniin u diray dad uu sheegay inaanay deganeyn xeradaasi barakacayaasha ay ka agdhisteen waabab ay ku doonayaan dhul iyo walibana raashin, waxaanu ugu baaqay inay ka waantoobaan falalkaasi. runtii waxaanu arkaynay meesha dadka deganaa iyo intaa saddex laabkeed oo ah dad suuqa jooga aqalada cadcad ku jira oo buulal ka agdhistay. sidaynu arkaynay buulasha dadna dad waxay ahayd duruufta iyo baahidu ay ka dhabtay, dadna waxaad arkaysay dadkii magaalada ka yimid oo inagu soo dabayaacayay markii aan meesha nimid. degme ahaan way noo diiwaan gashan tahay annaga cid kastoo degan oo aan u sameynay diiwaangelinteeda soconna mayso. shacbigeenana waxaan uga digayaa in dadka masaakiinta ah lagu dul doono ama dhul ha ahaato ama raashin ha ahaato. waxaanu dib ugu noqon doonaa guddiyada iyo dadka ku dul shaqaysta dadkaasi ee hay-adaha u taga ee yidhaahda waxbaanu siinaynaa. waxay noqon doontaa cid ay isla og tahay hay-adda u xil saaran barakacayaasha, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska iyo dowladda hoose, in si dhaba looga howlgalo meel kastana. in meelihii hore tirakoobkooga haynay iyo meelaha dambe waxay noqon doontaa in xeer loo abuuro, ciqaabna la mariyo qof kasta oo doonaya dadka masaakiinta ah inuu ku dul shaqaysto iyo intuu buulka ag dhisto uu yidhaahdo amba dhulha laga helo amba raashin ha lagu siiyo. waa masiibo weeye. waxaanu leenahay way idinla kulmi kartaa dadka barakacayaasha ee masaakiinta dadka dul degayow, way idinla kulmi kartaa. ilaahay gooni ugamuu dhigin iyaga, qof kasta way ku dhici kartaa. halkan siduu sheegay agaasimuhu wixii loo hayay halkan agaasimayaasha iyo guddoomiyaha degmada iyo taaliif xigeenka bilayska halkan dala jooga ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonaa. 40 qoys bay ahaayeen, 50 qoys baanu usoo xisaabinay wixii loo keenayay ay haday tahay iyo dowladda haday tahay. Mukhtar Ismaaciil Cali, Telefishinka Universal, Hargeysa.